ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لكن واحد وقاته قوانك كارتيدا عقلك وحق هذا ما تسبدل سمي بريها سوقي. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إلهي جل وعلا أيام هادسك له نبتقلين حديث نبينا كوركيس هاتو أدي أيدي سلام يا ولا له ميل والبد أدونك أتكجوكتا سنان كبلاني بإذن الله الكريم وحان رأينا ما أنت كهضو أريما بدن إلهي جل وعلا هاي وافجي حقا كلمة حقا أو نكسن قلبي نتعاونيس إلهي جل وعلا هاي وافجيو waxaan doonayaa maanta inaan idila qaybsado arinkii ay idinka ballan qaaday ee aan dhahwaydin soo gudbinaya taasoo ahaa isbedelka nolosha taasoo loo baahan yahay mar walba inuu qofka mu'minka ama muslimka ah ama bini aadanka ah ku dadaalo mustaqbalkiisa si uu u gaaro heer adduunkan hadduu maaragtay dadaalo soo adduunkan maaragtay heer uga gaara. sidaas darteed walaalayaal ilaahay jalla wacala khayr haydiisii horta marka hore. marka labaad waxaan u mahadcelinayaa walaalaha aadka ila soo xiriira iga dalbaday codsigan mar walba inaan maaragtay la taliyo wacyigeliyo la dardaarmo waaniyo aad u mahadsantihiin. taasna ilaahay jalla wacala ayaan ugu dhawaanayaa. ilaahay jalla wacala ayaan waxaa weydiisanayaa ikhlaas biidni illaahi alkariim. waxaa idin soo sheegay videogii hore aan soo duubay walaalo badan ayaa daawaday, laakiin videogaas intaan soo dhigin ka hor walaalo badan baa waxay ii muujiyeen rabitaankooda inay isbedel adduun iyo aakhiro sameeyaan ay aad ugu baahnayeen. laakiin waxaan dareemay markaa videoga soo geliyay inay qaarkood gadaal ay u durqeen ee ma aragtay dadaalkii ama rabitaankii ama maxaa la lahaa arintii ka keentay inay sii dadaalaan ay ahaan lahayd gadaal ay u durqeen. arrinkaasna waxaa uga hayaa arrin baa idinkaga haya. sidaad ogsoontihiin walaalayaal, isbedelka adduunka lagu sameeyo qof walba oo bini aadan ah, dhalinyaro hadduu yahay, khiyaar hadduu yahay, qof weyn hadduu yahay wuxuu doona haba ahaadee isbedel qofka bini aadanka markuu sameynayo waxyaalo badan ayaa looga baahan yahay. sida aniga markaa baaritaan yar sameeyey waxaa ii soo baxday 2 wado oo keliya ayaa la qaadi karaa haddii la doonayo in isbedel la sameeyo. ulama jeedo habdhaqanka loo sameynayo, waqtiga la sameynayo, goorta la sameynayo, meesha lagu sameynayo kama hadlayo. laakiin waxaa ula jeedaa qofka markuu go'aansado inuu go'aan gaara ama ay ku soo dhacda inuu go'aan gaara isbedel noloshiisa ku sameeya, waxaan awal horta ka fikiraynaa inuu qofkan doonayo noloshu ku jiro nolol ka wanaagsan inuu isbedel ku sameeyo, ama ila dalika arrin xumaan ah inaad isbedel ka samayso. way dhacdaa kuwa ku fikira oo maaragtay inay fanaaniin waxyaalo badan noqdaan rabaan, laakiin aniga iguma aadan baranin inaan xumaanta isbedelkeeda idiin sheego ee waxaa igu barateen inaan idiin sheego wanaaga isbedelkiisa. anigu arrintaasi ka duulaya marka videogaan soo geliyay laga yaabo walaalo badan inuusan qancinin, waanan ogaa, horey ayaan u ogaa. isbedelka lagu sheegayo erayada qofka bini'aadanka ka soo baxa ama la taliyaha ama waaniyaha dadka waaninayo ma aha qasab inay hadalka ka soo baxay qof walba uu qanciya. dhalinyarada badan ay soo weydiiyay inay isbedel sameynayaan laga yaabo inay iga sugayeen inaan usoo bandhiga araamaha wixii maaragtay theoretically ah ama practically ah ay gaaladu ama dadka maaragtay cilmi baarista ama wadanku hore wax ka imaada Ingiriiska, Mareykanka, Shiinaha, Italia, German, Somalia, Sweden, Norway, Canada wuxuu ka imaadeen dadkaasi habdhaqankay dadka usoo bandhigi jireen isbedelkooda inay iga sugayeen ayaa laga yaabaa oo aan dhahay subaxdii kac saas samey, jadwal samayso, isbedel, hamigaada ha weynaado, hamigaada ha ahaado mid ku salaysan mustaqbalka waxay sinaysaa kuwa cadaada iyadoo ah theory ahaan inaan u sheego ayay iga sugayeen. laakiin aniga waxaan doonayaa oo aniga hadafkayga uu yahay ama habdhaqankayga uu yahay ama wacyigelinteedii waanidayda ay tahay 2 shay weeyaan. 2daas shay waxay tahay isbedelka aan doonaya inaad samaysaan ma aha oo keliya mid ku salaysan adduunkani. sidaas darteed ayaa waxaa idinkugu bilaabay waanadayda ama isbedelka qofka doonaya inaan la qaybsado. waxaan ku bilaabay arrinta la xiriirta ruuxda, muqadasta, arrinta la xiriirta in connection aad la samaysaa khaaliqii ku abuuray. saad ma aragtay noloshaada isbedel adduuniya aakhiraad u gaartaa. laga yaabo walaalo badan iga soo mahadceliyeen ee arrintaasi ka heleen, soo jiidatay, qaar hore u samayn jiray laakiin maanan sharxin. laakiin maanta ayaa sharxaya intaan guda galin mawduuca aan maanta rabay inaan ka hadlo.
saddexdan shay ayaa waxa u doortay ayaa waxay tahay qofka muslimka ahi marna kama maarmo saddexdan shay wuxuu doona ha ahaado isbeddelkuu doonana mustaqbalka ha doono inuu sameeyo ama yuusan samaynin saddexdan shay waa aas-aaska nolosha qofka muslimka ahi asoon isbeddel gaarin weeyaan dabcan kow arrinta labaad ayaa waxay tahay noloshaadu haddii laga weeyaa saddexda shay adigan aan kula hadlayo walaalkayga muslimka ah soomaaliga ah dhalinyarada ah doonaya isbeddel adduun saddexdaas noloshaas haddaa ka weyso isbeddelka kale ee aad doonayso aniga cabdiqani ahaan ma garanayo amaa ilaa dalika saddexdaas shay haddaad noloshaadii ku cabirtaa meel dhigtaa jaangoysaa qalbigaaga maskaxdaada ruuxdaada caqligaada kartidaada ay soo jiidataa saddexdaas shay oo ah al-ikhlaas marka hore noloshaada dhan waxaad ogaataa inuu ilaahay jalla wacalaa ku leeyahay inuu ilaahay ku abuuray inuu ilaahay jalla wacalaa xaalad walbo aad neefsanayso aad soo kacayso aad ordayso aad cunayso aad cabayso ilaahaygii noloshaas ku siiyey inaad u khaalis yeeshaa wax walba aad samaynayso ama ilaa dalika aniga qofkaan la hadlayo ma tihid haddaydan systemkaas ama logicaligaas ama caqligaas ama fikraddaas aysan kugu jirin kow labo istikfaarta waxaan u doorto waxay tahay waa waddada keli lagu badbaado horumarna lagu gaaro adduun iyo aakhiraba isbeddel ayaa doonaysaa horumar ayaa doonaysaa nolol wanaagsan ayaa doonaysaa nolol fiican ayaa doonaysaa istikfaarta hadday noloshaadu ka maqan tahay istikfaarta hadday yani habdhaqankaaga habmaameelkaada uu ka maqan yahay isbeddelka aad doonayso aniga ma garanayo midka oo maaragtay David ama Andesh ama maxaa la dhahaa ama wuxuu doona magaca gaalba ha ahaaday David John waxay sheegaanba isbeddelkooda kuma jirto labadan shay adiga haddaa ku fikirayso marka isbeddel saas inaad ama aad ku dhaqanto taasi aniga iguma jirto qorshahayga labo istikfaarta waxaan u doortay waxay tahay noloshaada adduun iyo aakhira ayay kuu bedelaysaa qanaaco adduun ayaad ka helaysaa saxansaxa iyo tuma'niina iyo udgoon ayaad ka helaysaa oo ruuxi ah kadibna practically waxaad u samaynaysaa mustaqbalkaaga waxbarashadaada hadafkaaga adduun waxaad ogaataa bini-aadan ayaa tahay muslim ayaa tahay maalin iyo habeen ayaa dambaabtaa haddaysan istikfaarta marka noloshaada ka mid ahayn waa maxay waxa kale nolosha kale isbeddelka kale ee aad raadinayso haddaadan dhahin allahuma kfir lii dembiga aad gashay haddaadan qiranaynin qofka waxaan soo wadaa 10 logically ah oo ma aragtay luqadda adduunka hadda markii la fiiriyo la qiimeeyey ugu caalamsan waa luqadda ingiriis ah nin oo ma aragtay theoretical ah uu qoray 10kan shay waa maadiga adduunka ka hadlaya waa idinla qaybsanaya taas xataa ma aha taas inaan idin leeyahay ha baranina ma aha barta laakiin waxa ugu horeeya ayaa waxay tahay saddexdan shay haddii lagaa waayo walaashaydiyay qofka aan la hadlayo waa adiga walaashaydiyay qofka aan la hadlayo adiga waa walaalkaygiyo saddexdan shay haddii lagaa waayo aniga ka cabdiqani ahaan nolol fiican weligaa ma helaysid waa ku riyoon kartaa dhakhtar inaad noqotid jaamic inaad noqotid economically inaad noqotid politically inaad noqotid football player inaad noqotid maxaa la engineer inaad noqotid maxaa la dhahaa macallin inaad noqotid sheekh inaad noqotid ay shay hadafkaaga isbeddelka nolosha wanaagsan famil fiican ood ka soo jirto magac status daarabta inaad yeelatid haddii saddexda lagaa waayo ani ahaantayda meel kale uraadsaa ku leeyahay isbeddelkaaga ama farxadaada arrinta tawbada marka استغفارته أيديش شيء دم والبعاد قش وحلا قلبها هي إن إلهي استغفار ويدي ستا سومالي كل ملوك وكوقف الضين ولش أدونك إيه رقيس كقادر دوني شيء إن يعني يلتها أما عطرتها أردت لا توبة مرك علماء الربانيين وحير هذا توبة استغفار تحول حي وحيتها التوبة وندم يا الجاربة استغفار الدم يا قش اللهم اغفر لي إلهي جل وعلا وجود مدافع أسأل القرآن كنا وشيء إنه هو الغفور الرحيم أما التوبة دم يبدأ يا قش هو وين dhalinyaro badan aan zinaystaan dhalinyaro badan aan qamri cabaan dhalinyaro badan aan drugs sameeyaan dhalinyaro badan xuquuqul waalideynka hooyada ku afceliya dhalinyaro badan dadka ilaahay ahayn dadka yani waxyaalo badan oo maaragtay kabaa'irta waaweynta ah sameeyaan tawba lagaaga baahan yahay isbeddel nolol wanaagsan aad doonaysaa nolol fiican aad doonaysaa dambiye waaweyn aad ku jirtaa weliga allah isbeddel ma gaaraysid horumar ma gaaraysid haddaa gaartid waddo qaldan ayaad u maraysaa saddexdaas marka arrintaas ay ku doortay haddaad maanta ila fahantay khayran waan kusoo dhaweynaya ama ilaa dalika isbeddelka koowaad ee noloshaada aad ku samayn karto waxaa weeye marka waa inaad u raacdaa dhinaca diinta kow diintaada maxay ku faraysaa maxay kugula talinaysaa maxay kugu wacyigelinaysaa hadafka koowaad ha ku ahaado hadafka labaad waxay tahay mataqaanaa walaa tansaa nasiibaka min addunya
هايلوبين خيبت أدخل هذا الدنيا إنجنير نقو دكتور نقو معلم نقو وعدية نقو فوتبول بلاير نقو ايكونوميكال نقو بوليتيكالي معرفت وضد إلهي جل وعلا الله مريا نقو وندقو كرتا ولا تنسى نصيبك من الدنيا لكن سؤال مش تروح حتى محو إلهي كو قري قف البو اختار ميو نقنا يا وامي قف البو داعر إنه نقدر من نقنا يا وامي قف البو رب إنه بوليتيكال نقدر من نقنا يا وامي قف البو مارت انجينير نقدر إنه نقدر من نقنا يا وامي قف البو فوتبول بلاير إنه نقدر من نقنا يا وامي لأجل ذلك إلهي جل وعلا حقوقه أياد نقنيسا وحي ما أردت رحمك وإذا ما كنت جرت الوقري أياد نقنيسا أما إلى ذلك كون واحد جود كما جودكم كي يدوكم من نقنيسا لكن وحلو باهي هيرك أد أريمها سكو جاري لهيت واحد كوريونيسي يا جعشهاي يا أدونيسي الدنيا آخر أد كل ما أدونيسي قابك جاري لهيت قابك سيدوني لا إنا إذا لقي بصدق فيديو أبو ديران دونا وأنا مطلق عليه كدوات لوا 10 دقيقة إلا الصدر ونقن دونا إلهي وحكى بري لك إنه يفوض ذا بإذن الله البال وحال الله مركب اسبدلك أو لقى فيري يعني نعيب بدن قفك بلادك ممكن اسبدل سمين أيوه وحوبة هنا نعيب بدن إنه كفيري نفس دي سينوس حكمية حسابية إسلافيريا معنى تأمل والتفكر سمايا كدي من ودوينك أفر إنه في سدا جانشدو هيشتا ماشو كنو اللي هي صاحب ديسا فملكيسا وحبرشديسا عقليسا مسكحديسا وأينو أولا قيمة أنتو سيسبدل سميني كو لكن وحان أوجه هذا المعنى على فيسبوك سوقرا إذا لقيت سمايا دلني يرادا إنتو ذا أوجو بدن إسبدل كودا وحي كل إنسان هو يدارين أو بين أهولي بقى وأنا يرى قار عيك معها لكن قفك دوني يسبدل وحلقة دونية قعان علمي كرتي وحلقة دونية إنه ما أركتي عقلي استعمالها قفك داعد أو داعدني ما لي ماذا وإلى الصحانية أما ويفهم وحن أقول الجيدو أري ما حد صار شيء heerka adduunkan ka rabana wuu gaarayaa asagoo qanaaco leh walow yuusan gaarayne wuxuu ogaanayaa inuu dadaal haayo dadaalkiisana uu maalin yowm min al-ayaam gaari doono maxaa yeelay qof walba oo isbedel jeclaa inuu sameeyo oo hadaf lahaa wuu gaaray imisaa dhakhtar noqotay imisaa macallin noqotay imisaa jaamici noqotay imisaa hadaf adduunkan ay jeclaayeen gaareen dadkaasni kama liidatid sidaas darteed marka labada qaab ee idin sheegay hadaad ila socotay oo laga duulo muslim iyo gaal ay ka duulaan ayaa waxay tahay kow dadka muslimiinta ah waxay isbedelkooda ku saleeyaan si aqadiya ah aaminaad ah yani muqaddas ah kow ay ku fikiraan labo waxay u isticmaalaan ilaahi jalla wa ala adduunkan cilmiga bil aadanka uu siiyay allama al-insana ma lam ya'lam ilaahi jalla wa ala wuxuu inoogu manna sheeganayaa إنه بالآدم كأم إنسان كبري وحسن قرنيني إلهي جل وعلا قرآن كان حينه شيء والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وإنه أمراء أدون كان علمي أدون كان لقبرتنه إنه استعمالها أدون كان إلهي أنا كأنه إنه أغوري هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا تاسوامي قفك مسلم كأه هل اسبدل كيسة لوصل على يكوسل ليا أما قفك قال كأه وحكوسل ليا تيوريتيكال علم أدون باريتان أدون دذال أدون هبيني مالين وسو جيدا وقتي يسو كل مياه أيو اسبدل كوسل مياه هيركو أدون كان ربي إنه كجارين هدو إلهي وفدو ذيا قال مسلم بإلهي وفدو ذيا لكن ذلك يا الوحرين هاي هل كاسو الضوء أيو كدو ليا أما هذا مسلمين هاي لوص وضع يا كدو لينا كو مركا قفك مسلم كوا إنه مركا هوري وضد الشرعي دين الإسلام كأمرا لما أدون كان وأمرا سيدا سيدرت المركا وحيد لك يبسنا يا مركا ولا لك هذا دونيو أما ولاش دونيش إن إسبدل سمايان وحيد لك يبسنا توبان أريم أي قرين ضدك علمي بارست السمايا أما يعني وحلو يقانو ضدك علمي بارست السمايان ها سويدش كحلورا فيتسكوب ليغا تيوري أي سمايان oo dadka cilmi baarista ah oo ma aragtay dadka la taliya oo cilmi ku leh hab dhaqanka bil aadanka isbedeladooda iyo sidii ku gaari lahaayeen successful waxa la yiri marka
intaa waxaan idinkugu sheegaynaa 10 ways happyful life sida ku gaartaa nolol ka fiican taadii hore oo aad ku faraxdaa. arrinta koowaad waa dadka waxay qoreen. marka hore waxaa idiin sheegayaa dadka walaalaha ay iga sugayeen inaan usoo bandhigo arrimaha ingiriiska aan usoo qaato yani sida meel aan kasoo guuriyo ilaha ama qof yani oo adduunka heer ka gaaray uu soo qoray oo macni ama ha ahaada gaal ama muslim ahaada laakiin ku qoran af qaleedka ku qoran oo dadka qaar maaragtay internetka ka buuxo ee dadka qaar loo sheego ayay walaalaha qaar xiiseeyaan. taasna ma aha been, kaftana iga ma aha. maanta da aayad usoo qaadata dhalinyarada maanta kuma siinay ihtimaame, wuxuu ihtimaam ku siinaa markaad dhahdid David ama John buugiisa oo adduunka aqriyay wuxuu kusoo bandhigay tobankaasoo isbedel haddaad ku samaysid aad khatar noqonayso. maskaxda jaw wuxuu iska dhaadhicinaya tobankaas hadduu sameey inuu noqonaya qofka adduunka uga habisan. laakiin fiiriya iyaga qoraalkaas naftirkiisa ayaan idiin sharaxayaa. waxaad ka fahmi doontaa haddaad ku salaysaa dhinaca caqadiyan, diiniyan, cilmiyan, fikriyan, muslim ahaan u salaysaa waad uga faa'iidaysan kartaa. wuxuu ku yiri address the choices you have made in the past and change the choices you will make in the future. waxaa loola jeedaa marka waa inaad maaragtay meel dhigataa ama aad ku fikirtaa fikiradii aad kusoo fikirtay markii hore iyo kuwa hadda samaynaysid waa inay noqdaan kuwa kuu suurtageliya inaad isbedel samaysaa in the future. يعني change the choices you will make in the future. waa inay isbedelo badanaa ku fikirtaa bilaadanka aysan kuu suurtagelin laakiin hadda waxaa samaysaa isbedeladii hore adoo wata kuwa cusub ku fikir kadibna kuwa cusub halqabad u samayso raac. kuwaasna ma aragtay ku bedelo maadaama kuwii hore ay kusoo shaqaynin macna uu sharxi u baahan yahay kuwii hore kusoo shaqaynin waxaa loo baahan yahay kuwa cusub inaad ku fikirtaa si mustaqbalka kugu saameyn lahayn. waa midda koowaad. 2 speak up with honesty and stop holding back what you think. marka waa inaad yani adiga is aaminsan tahay xaqiiqda aad kala hadashaa. speak up honestly yani inaad si yani xaqiiq ah oo runta ku jirto oo maaragtay yani honestly waxaa laga wadaa suulisha hadda u bedelo tola meday aalit yani si oo maaragtay run ah iskula hadal adiga. and sluta gå tillbaka för det du har tänkt and honestly and stop holding back what you think. yani wixii aad ku fikirtay ha kuna noqonin. wixii aad ku fikirtay markii hore ha kuna noqonine hore u soco ama yeesa saameyn kugu yeelan hareedaada waa ku fikiri jirto aadan hore u samayn jirin. haddana waxaa lagu yiri arrinka saddexaad ayaa wuxuu yahay don't believe that you can be the best or the perfect individual because perfect does not exist. waxaa loola jeedaa ha noqonin dabaal ku fikirahay inuu noqdo adduunka ninkii maamuli lahaa. way dhici kartaa inaad noqotid laakiin waxaa loola jeedaa waxyaalo caqliga logical loo fikiri karaa loo baahan yahay oo aad ku fikiri kartid inaad yani don't be yani perfect qofka ugu fiican noqonaya. يعني وهدف وين واسبدل وين لكن waxyaalaha qaar adiga wax perfect ku ah oo ku shaqeynin ayaa jiro laakiin qof kale perfect u noqonayo una shaqeynayo. marka ha ku fikirin yani waxa loo jeedaa hami aadan sameyn karin ha ku fikirin. midka aflaad waxay tahay acknowledge your losses and move on to your success. waxaa lagu yiri khiro yani qaladaadkaaga ama yani markaad wax ku guuleysan weyso yani guul daradaada qiro horeyna uga soco yani horumarkaaga and move on to your success yani go vidare till din framgång yani hor uga soco yani wanaajintaada horumarkaada hore uga soco. waxaana qirataa laakiin qaladaadka aad gashay. tusaale marka qof dambiilo badan baa tahay dhalinyaraad tahay waad is og tahay waad zinaysataa khamriyaad cabtaa daraagsaa ka shaqaysaa salaad ma tukatid ilaahay jalla wacala hadduu kuu yidhaahdo ilaahay waa ka dheer tahay markaasaa doonaysaa inaad noqoto qofka adduunka ugu fiican. ani ahaantayda maskaxdayda ma suurtagelayso. qaladaadkaada qiro wa an istakfiruu rabbakum ilaahay u noqo dambi dhaafna weydiiso uma tuubuu ilayh
kana nadam u samay oo ka qoomamay dambigaad ku jirtid ilaahay jalla wacala nolol fiican ku siinayaa waa isku qabta arrinkan iyo hadda ninka wuxuu ka hadla mujida ayadoo diiniyan caqliyan maskaxiyan arimi horena waa kusoo fikiri karaayo ilaahay jalla wacala wuxuu leeyahay innal xasanaati yudhibna sayi'aat dambiyada hore u sameeyta wanaaga aad hadda samaynaysa ku badal ilaahay jalla wacala baana leh noloshan ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayyuhalladhiina aamanuu taqullaha wa kunuu maca saadiqiin mu'miniin ilaahay run ka sheega noqda speak honestly to you on yourself don't lie on yourself habeenha isku sheegin waad is ogtahay qofkaa tahay arrinta shanaad marka ayaa waxay tahay remember that it's not how many mistakes you have made but what you learn from them that defines you waxaa loola jeeda marka remember that's not how waxaad xasuusataa waxa laga hadlaya ma aha inta qaladaad aad samaysay oo horey aad u samaysay ama aad ku dhacday ee waxa laga hadlaya waxay tahay waxaad ka baratay qaladaadkaaga ilaahay jalla wacala quraankiisu inuu sheegaya wuxuu leeyahay qul yaa cibaadiy alladheena asrafuu cala anfusihim laa taqnatuu min raxmatillah dambiyadaada ilaahay jalla wacala raxmadiisa ha ka qusanin intan waxay leedahay qaladaadka ah hore usoo sameynaysa yeesan noqon mid saameyn ku yeesho horumarkaaga aad ka fikirto mar walba aad dhahdid waaw maanta dambiga soo sameeyay iskuul ma barti jaamacad ma barti ma shaqaysti cilmi ma lihi wax ma sameeyay horumar ma gaari kari don't do that don't say that the biggest mistake that you can make is when you think about the past things you did forget iska ilaaw laakiin waxaa ka fikirtaa mustaqbalka waxaad sameyn lahayd hana tirinin dambiyadaada iyo qaladaadkaada ee waxaad tirisaa wanaagaada iyo waxaad ka baratay dambiyaashaas arrinta lixaad marka waxay khusaysaa habdhaqanka dadka kale ay kula yeelanaan lianna qof walbo maanta isbeddel sameynaya adduunkan wuxuu u baahan yahay dad caawiya asaga boqolkiiba boqol asaga waa waxa sameynayo cilmiga kartida awoodda isbedelka asaga waa laakiin dadku caawiya ama saameyn kugu yeesho waa yeelanaysaa noloshaada marka waxaa lagu leeyahay marka forgive those who have hurt you but change who you surround yourself with bimacna marka waxaa lagu leeyahay iska cafi dadka oo dhibaato kugu sameeyey ku xiqdiyey ku xaasiday isbeddel aana kula doonaynin mustaqbalkaaga laakiin waxaad ka fikirtaa sidaad u bedeli lahayd la socodka dadkaas waxaa lagu dhahay dadkii kusoo forgive those who hurt you but change who you surround yourself with dadkaa la socotid bedel dadka kula socdo oonan horumarka ku rabin bedel la socodkooda laakiin dembi dhaaf ودم بدافع إلهي جل وعلا نحوليه اسكو دم بدافع اسكو نحريستا اسعافية ها اسحق ذينينا مركا ودفانتين وملينا يا تضبضن باجرو بقولك ما بقول اسبدل كاد الربين هرمر كاد الربين فرفعوني هذا كسو رجيدو كحقدينا يو كحزدينا يو كدبا يو لكن اسكي عافية إلهي جل وعلا نليه واعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم اسكا عفي لكن بدل إلهي جل وعلا نحوليه هي وحاد سميستا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي نبي قالوا أمر يعني قريش إدتك وحخدينا اسكا دافا لليه إيه أذيك وحاد سميستا ضدك وناكسن لصاحب أبو بكر عمر عثمان لصاحب ويل في عن ملي رفي عن ولا شيء دي ولا كيو رات سد ضدك إذن حقدية إذن ديوانا كجيستا أو كعررة أو كفقادة نعم أردت سيديدات بركة طلبات واسمه شيء أردت سيديدات nurture your mind with a great thoughts for you will never go higher than you think أردت أن مركب حي قصيصة أردت كالهدايا عمل مسكح هذا كفكر وحيالها واوين أتكون فكريسو يا أخوات ديد سنة مستورة تنكار هيسو وحالها وناقة أو هاير كأكو فكريسو هيسو لكن واحد أوقاتها for you will never go higher than you think واحد كو فكرتو ما دافيسيد ما صار دافيسيد وحبات كو فكريسا وحي عقلي هذا علمي هذا كرتي هذا أود هذا محالة لها
kartidaada iyo awooddaada iyo xirfadaada waxaadan ahayn ma gaaraysid. laakiin hayso, kaydso, ka fikir, laakiin inaadan ka sara maraynin taas ogow. arrinta sagaalaad ayaa waxay tahay don't. waa arrinta ugu muhiimsan marka dhalinyarada la taliyo marka ay doonayaan inay sameeyaan horumar. don't compare your own life with anyone else. ha isla barbar dhigin noloshaada qof walba wuxuu doon ha ahaade. ha isla barbar dhigin, lianna you have يعني another life, another desire, another everything. You and him is much different. marka hasla barbar dhigin ninkan waa engineer, waa dhakhtar, waa politically, waa economically, waa san, waa football player, waa laacib, waa qurux badan yahay, waa san. No, don't think that. saameyn weyn ayay kugu yeelanaysaa. waxaa samayn kartaa waxay tahay do what you like to do. waxaad jeceshahay adiga samey, ha isla barbar dhigin dadka kale. försök inte jämföra med dig och andra om du vill nå din framtid. arrinta ugu dambaysa ayaa waxay tahay iska ilaaw waxyaalaha waxyaalaha aanan faa'iidada lahayn. qaybta 10aad waa iga baxday, laakiin dabcan asoo afsiidusha ayuu qoran eliminera det onödiga och odla det väsentliga. bimacnaa waxay tahay iska ilaa waxyaalaha kutirikuteenta ah, maaweelada ah, cilmi iyo caqli iyo xirfad aanan ku dhisnayn. ilaahay jalla wacala qur-aankiisana waa inoogu sheegay waxyaalaha noloshiina ay maaragtay oo idinku waswaasinayso xumaantane iska daalane. arrintaas waa arrin af ingiriisa soo guuriyey, micno weyn ku fadhisa, caqli ku fadhisa. qofkii doonayana inuu maaragtay arrimahan iyadoo maaragtay faahfaahin badan leh internetka ayuu ka buuxdaa, waa heli kara. laakiin 10kan ayay soo jiidatay taasoo aan ku dabaqi karo waxaan aaminsanahay. waxaa idiin sheegaya marka arrimahan aad ka dhegeysanaysaa dadka gaalada ha ahaadaan, wadamo kale ha ka imaadaan, waxay rabaan ha ahaadaan, hadday kasoo horjeedo diinteena islaamka ah, yaa layt inaad qaadataa, yaa layt inaad qaadataa oo maskaxdaada gelisa. dad badan ayaan garanaya dhalinyaro ah, philosophically ah, psychology ah, waxyaalaha badan kutirikuteento maskaxda bini'aadanka kala bedelaya inay qaataan ayaad waxaa arkaysaaba aayaadka iyo xadiista dhan way ka wada tagayaanba. markii lagu yiraahdaa 3 shay oo muhiim idin ah noloshiina dhan bedelayo ayaa idin sheegaya al-ikhlaasu wal-istighfaaru wat-tawbatu. uu dhaho ma hada ya sheekh, muxuu ka hadlayaa? waxaa rabaa things that I can do that brother. oo kuleeya brother askada brother. arrin waxaa laga hadlayaa mid ruuxi ah, aakhiri adduunku anfacaya, adduunkaadana farxad iyo tumaniina iyo sakiina. man camila saalixan min dakarin aw untha wa huwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan tayiba. hadihi alxayaa ayaa idinka la hadlaya. kama hadlayo xaalad John iyo David iyo Blay ay ku nool yihiin, habeenkiina isla hadlayaan, maalintiina intaasoo kafay cabayaan, intaasoo kiniin isticmaalayaan, markay dhintaana haba'an manthura. ilaahay jalla wacala qur'aankiisa ku leeyahay haba'an manthura, waxay soo qabteen oo dhan. ama ilaa dalika walaalkaygiyow arrintaas ka fikir. arrintaas waxay ahayd arrinta khusaysay dhinaca, maadaama idin sheegay isbeddelka dhinacyo badan laga fiiraya, dhinaca theoretically ah waxyaalaha adduunkan cilmiga aan ka faa'iidno. ama arrinta diiniga qofku markuu sameynayo qaybta kale ayaa idinla qaybsan doonaa. waa walaalkii cabdikhani, khayrka iyo wanaagga idinla jecel. waxaan doonayaa arrinta idinku ugu dambaysa aan kusoo gabagabeynayo ayaa waxay tahay aniga kula hadlayo mar walba waxaan jeclaa inaan isbeddel nolosheeda ka sameeya. anigaan kula hadlayo mar walba waxaan jeclaa inaan isbeddel nolosheeda ku sameeya. isbeddelkaasoo ilaahay raalli ka yahay. mar hadduu ilaahay raalli ka noqdaa, nebigana aa ku daydaa, diinta islaamkadan aan lambar war ka dhigtaa, waxaan ogahay iga dhacdhacsan tahay qofka adduunka ugu farxadiga badan ina ahay. ama ilaa dalika wadadaas haddaa khilaafo, ilaahay hadduu iga dhiga ninka adduunka ugu qaanisan, ugu qanisan, ugu sharafta badan, ugu kartida badan, ugu lacagta badan, laakiin wadadiisa uu iga leexiyaa, aniga faa'iida ima ah, ubadkayga faa'iida uma ah, familkayga faa'iida uma ah, mustaqbalkayga adduun iyo aakhirane faa'iida uma ah. sidaas darteed waxaan ku dadaalaa anuu dhalinyaro ah ilaahay jalla wacala wadadiisa inaa qaato, cilmiga adduunkan inaa wax ka barto. walaa tansaa nasiibaka min addunya. laakiin waxaad ogaataa go-aanka
kartida caqliga waa xagaada maanta isbedel sameey beriha sugin ama ila dalika nolol fiican wanaag khayr farxad ayaa idin rajayay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa inoo qaybta gale iyo ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة